Soomaaliyeed dhibaato iyo fitna dhexdeeda way ka soo daashay haddana alxamdulillah meel kasto hadda inta haddaan soo maray gobolka Gedo iyo gobolka Hiiraan iyo dadku sida ay u jecel yihiin in la wada jiro oo ummad la noqdo dad way daaleen yani fitno iyo rabsho ma rabaan deganaanshay rabaan marka deganaanshaas in lagu wada hor loo sii socdo rabaan waxaad ogaataan Soomaalida waxay ku maamahan riti fitna ninkii rara waqti Soomaaliya jeelay reerin jirtay waxay yiraahdeen jeel waxa lagu raraa mid haama lagu raraa oo waa la dhaansada fitnadana saas oo kale ku tashbiihiyeen qofka fitnada horoodo fitna kiciya waxay yiraahdeen riti fitno ninkii rara haanta ugu weyn asaga la degan sorti muna raro fitnada riti fitna qofkii rara haanta ugu weyn asaga la degsanay marka qofuna fitna ka aran adee isaga dheero nabi sallallahu alayhi wasallam markay fitna dhacdo wuxuu kula dardaari jiray asxaabtiisa wuxuu ya Abdullah yo kun al maqtul wala takun al qatil adiga halugu dilo adigu waxa dilay labada qof hadda fitna ka aysa midba wax dilay midna waa la dilaya kii la dilay wuu tagay kii wax dilay wuu joogaa kan wax dilay jooga inuu dambi wata moogi wax uu dhaamo qofkii wuu dilay ma jirto waa sababtu mesela intuu dilay asoo waligiin noolaanayo waxay ahaan lahayd inta dhimasho loogu talay dilay dilo inta xoog galay dhacdo inagu bis waxbaan dilnay waa joogayna qof joogaya mala kullu nafsin daa'iqatul maut wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld qof waana ma jirto laakiin waxa khasaaro qaba labada qof kala dilay kan wax dila waxa khasaaro qaba kan wax dila oo ilaahay wuxuu waqad khaaba waxa hoogay waxa khasaaray man hamala qofkii soo xambaarsada dhulman gardaro asoo dhabarka dhulmi ku wato qofkii aakhira isku taga qofkan ba hoog iyo khasaaro u gaaray qofkii asaga la dilayna wixii dambi ah uu lahaa kii dilay bal u wareejay inni uriidu an tabua bi ismi wa ismika fatakuna min ashaabin nar marka saasraad fitnada wala damiya wala joojiya wala hortaga wala qaboojiya wala kal celiya dadka laakiin iskuma shida iskuma kiciyo qofkii yani ku cibra qaadan way waxaan soo marnayna yani taariikhda inoo dhiman muddada dheer aan ku soo jirnay inaan wax ku garanno waan joognay qof kasto oo fitno sabab u ahaa natiijo la'aan ku baxaa asoo la lacanadaayo asoo inkaar ku dhacday asoo natiijo aan gaarin asagoo cirqi dhulba laga nacay ayuu adduunkan ka tagaya qofkii maslaxa iyo wanaag ka shaqeeyana asagoo dadku dhan ay wada jecel yihiin antum shuhadaa'ullahi fil ard dhulka dadka jooga ilaahay marxaatiisa yaadiin qof walba wuxuu yahay waa la yaqaanaa qofkii fitnoolo oo fitna ka kicinaayo waa la yaqaanaa dadka yaqaana ilaahayna uu yaqaanaa qofkii maslaxa iyo wanaag rabana dadkuna way garanayaan ilaahayna uu yaqaanaa marka qof walba muslix inaad noqoto isku day inaad wax wanaajiso wadankeena sida ogsoontihiin muddo badan ayaa wuxuu ku soo jiray iskhilaaf oo gudaha ah oo dadkeenu ay yani wax soo golaansho la'aan iyo isriix iyo khilaaf iyo isdagaal inagoo muslimiina dhexdaana aad ayaan usoo rafaadnay marka mustalaxa islaamka muslimiinta dhexdooda dagaalada dhex mara waxaa loo yaqaanaa alfitan oo kutubta markii laga sheekeynayo kitaabul fitan markii la yiraahdo waxaa lagu soo qaadanayaa dhibaatada muslimiinta dhex martay nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu necbaa marka in muslimiinta dhexdooda ay fitna dhex marto mawaaqif ku saabsan ayaan soo qaadanay si aan uga fogaano wax kasta oo ummadeena dib u keeni kara oo haddii xataa adigu aad markaas u muuqato inaad adigu arrintaas ku gar leedahay hadday dhibaato ka imaanayso inaad dhibaatada ka imaanayso adigoo xeerinaya wixii adiga gaarka ku ah inaad dib u liqdo oo ayna fidno sababtaada u kicin taas ayaan isku baraarujinayna waxaan soo qaadanay markii lagu been abuurtay mu'miniina Aisha radhiyallahu anha oo yiraahdeen xumaan ayay samaysay waxa arrintaas maamulay ee aad u wadadayna uu ahaa Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo munaafiq ah munaafiqnimadaas wuxuu ku noqday ninkaas oo ogsoontii nabiga intuu na imaanin ayaa waxa loo diyaarinayay labada qabiil ee carabta ah ee Madiina deganaa ee Aws iyo Khazraj ayaa waxa isku raaceen muddo dheer markay dagaalamayeen kadib inay samaystaan madax asagana ay ka dhigtaan taajkii madaxa loo saari lahaa ee madaxda uu ku noqon lahaa maalin walba intuu tago ninka sameynaya yaa wuxuu dhihi jiray maxaa kuu dhiman intay wax kuu marayaan dhaqso inuu dhammaado oo maalin madaxa loo saaro oo uu madax noqdo ayuu rajaynaya asagoo weli taajkii una dhammaanin oo aan la dhammaynin nabigaaba imaaday oo soo jiray sallallahu alayhi wasallam nabi meel uu imaaday marka yaa kaloo xukumaya oo meeshii joogaya Abdullah ibn Ubay madaxnimadii uu sugayay halkaas ku waayay marka asna wuxuu go'aan ku gaaray nabiga asaga sababtiisa oo kursigiisii ku waayay inuu asna lugooyo iyo khiyaano iyo shirqool iyo dhibla uu ka shaqeeyo oo marna inuu toosin nabiga arrintiisu maadaama asagu uu kafiyay kursi oo dadku nabiga ay ka raaceen
markaas mowqif kasta oo dhibaato la soo abaabulo waxa maqlaysaa Cabdullaahi bin Ubay ibn Salul ayaa ku jira waxaas waa cugdad gashay oo ah kursiga muxuu dhaafay aniga Cabdullaahi bin Ubay marka wuxuu sameeyay soo fursad muune helin oo been abuurasho Aisha xumaan lagu been abuurtay magaaladii Madiino ayuu meel walba ka tuuray ma maqasheen waxa dhacay ma maqasheen wuxuu soo yeelin wax kala ma wuxuu rabaa shakhsiyadda nabiga iyo qoyska nabiga inuu ku baabiyo dacaayadan oo dadku ay dhahaan ninka sheeganaya nabinimada ama diinta haysta ama saasa soo ninka qoyskiisa xaaskiisu xumaata lagu sheegaya ma oo kalsoonida dadku nabiga ay ku qabaan halka ay ku jirto kadibna la yiraahdo waraaway midkii diyaarka noo aha halkaas ay muraafimadu ka gashay markuu faafiyay marka dacaayadii beenta ay umumna Aisha laga been abuurtay yaa nabiga markuu adkaysan way dhibaatadaas oo maalin walba uu maqlaaya magac dhagiisa uu xumo xaaskiisa la aflagaadeynayo xumaanay sameeyay lagu hayo yuu masaajidka istaagay nabigu maalin markaas wuxuu ku yiri yaa macshar almuslimiin muslimiinta kulankooda man ya'dhuruni min rajul yaa iga qabta oo iga cudur daaranin qad balaqani anhu adahu fi ahli oo dibkiisu oo reerkayga soo gaaray ninkaas yaa iga qabta markaas wuxuu wallahi nabiga dhaaya ma calimtu ala ahli illa khayra reerkayga waxaan wanaag ahayn oo ku ogaay ma jirtee ninkaas dacaayada reerkayga ka faafinaya qoyskayga ka faafinaya yaa iga celinaya uga sheegta waxa istaagay Sa'd bin Mu'aad oo Aws laba qabiilad degan magaalada ugu weyn oo Aws khasal jiraado markaas wuxuu ya rasuul allah ya'duru ana ka qabanay fa in kana min al-Aws hadu jifadan ka soo jeeday Aws hadu yahay أنا قلت كل فناي نكاس من الوشيء وإن كان من إخواننا من الخزرج هدو خيرك كلي هينا لو يفي وقبائل هدو من قبيل كلام قفك أحكديو أنا قبيلة باللابانيس في المركز أنا وإسكندر هذه كرنو خلاص كلا خزرج لهذا هدو من خيرك كلي كلا يا نبكة قوة الدعايين خيرك كلام جفدة كلا خزرج هدو ياي أديك أنا أمريس هو حدا يسأل نكاس خيرك يقول دبي أيها المسلمون نكاس قوام بانكاس وسارة نكاس طلابها لقى قاضي هذا نامريس مركز أمر كأنه فلينا أيام طلابك قاضينا إيه أبو ناشر هكذا صور في عمل سكوت وصل وحي استاجين لي هذا صحابي ولي هذا سعد بن عبادة وحاجة شيء قيرني قبيلك مركز وحكوري كذبت بين بعض شيء لعمر الله إلهي لم كنا عرته إن هذا دليني كريم هدور هير كاجي يعني من كان تعمل وش شيء جاي ما من جعلتين إلا ديرو إن هذا طلابك قاضي كريم مدرس كهيرة يين وخزرج أو سيد بن حضير أيها استاجي مركز وحكوجي سنين كان اسكتشفه يين سعد بن عبادة سعد بن معاذ متى بنكرت سعد نقوله هدو أنا جايين أنا قبناي هدو هير كان كلا يعني النبي على نامريس يوكم موقف نقضي سيد بن حضير مركز وحكوجي كيلو كويري وسعد بن عبادة وحكوري بين بعض شيء أدينا إلهي بنكون نارته وندلينا أدونا وحتى منافق تجادل عن المنافقين وحتى المنافق منافقين الدفاع إذا مركا يلين فثار وابلا كعيبة لا بدي خير وابلا كلا بحب أوصي خزرج فتنين ماشي كذا عظم سأذكر نبينا ومنبر كيسارية ودك وعدنا أيها أنتم قصقت نبي محوس من المركب كعرر هاي إني أيها إسرائيل نحن المسلمين تا يمكن التجيء وحسرين مو نبيهم لما موقف مركب لفيريو وحامل حديث سوجرة سعد بن معاذ وسيد بن حضير سوجرة ولا منافق عن نبي النبي وانقبنا يقول كلام ولا مايا لما تعبان كلام هدي أي تاي ما أنت أنت ساس دين غطو كم ويقدر يهينه وأنت لا بلا قابو نبي